السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دماتين ولا ليال سود وهذا ما أنت وحرب هالكن إن نكسو قد بيو برنامج كسابسن قاب كاد القشن لهيدين سوقا ديجيتال كريبتو كرنسي الله يقانو العجها فيرتشوال كأ أي كتشيران اللي جاي يبسدو كارهان دلنيرة دلكي هو يشوكتا أو باهن إن أي يعني exchange كجتان كريبتو كرنسي أي وحكاجا مالقشدان إن شاء الله هذا بولا ليال أنت أنا إدين صو بندقين قاب كسوق باينانس وسوق جوا نايسن إدت كأنه كريبتها كجدان كران أي وجي يبسن كران يقاب ودوين كأمريان وحرب مركو كواد وحكست وحيلين يسمعها واحد نيجاتيف أو خطر له sidoo kalena waxay leeyihiin waxyaalo faa'iido ah oo positive ay leeyihiin labadaba insha Allah walaalayaal waxaan rabaa inaan la wadaago oo tusaale ahaan qofku inuu ogaado khataraha uu suuqani leeyahay waa muhiim inta aanu maal gashan wax kasta riski ay leeyihiin intiin marka koowaad waxaan ku bilaabaynaa qodobka ugu muhiimsan walaalayaal muuqaalkani financial advice maaha waa xog baan ku siinayaa midnimadihi insha Allah crypto gaara gata waxa weeye waxaan macluumaad idinku biirin karo qaacidooyinka suuqan caalamku raacaan dadka dhaqaalaha ee maal gashta ayaan rabaa marka koowaad inaan la wadaago qodobka koowaad ugu muhiimsan degdeg ahaan suuqan lacag aad ka maarantid mooyaane lacag kale ha gelin tusaale ahaan lacag ha u soo deyman si aad wax uga iibsatid lacag aad kira ku bixin lahayd lacag qof kugu leeyahay waxa ku iibsan lacag boqolkiiba 5 ama 2 ama 3 dhaqaalaha kamida oo aad ka maarantid kaliya ayaa dadka caalamka suuqan maal gashanaya ay marka koowaad geliyaan waa qodobka labaad qaacida suuqan la raaca ayuu leeyahay oo DYOR la dhaho do your own research oo in aad baadid yani coinka aad maal gashanaysid yani projectka uu ku shaqeeyo fundamentalkiisa caqabadaha uu xalinayo inta sano suuqa ku jiray market supply-giisa inta xabbe ee coin-kan ee suuqa ka dhex yaala dadka nooca isticmaalaya shirkadaha la xiriira ma xalaalba ma xaraamba waa in aad qofka wuxuu ku sheegay ama YouTuber ha noqdo ama se yani qof kale oo financial advisor ha noqdo aan raacin balse aad adigu samaysid due diligence oo adigu baaritaan xeel dheeriya ka samaysid intaan suuqan aadan maal gashan qodobka saddexaad ee ugu muhiimsan walaalayaal ee aan rabo inaan barnaamijkan idin kula wadaago suuqani waa suuq aan dawladda controlling oo regulation aan lahayn oo qaab cadaalada qofka waxa yar haysta iyo ka inta badan haysta shuruuc qabanaysa aynay jirin oo dhulka la isla jarayo oo naxariisi oo lin ay weeyay xaqiiqatan dad badan oo sida ninkan yani hadda Elon Musk la dhaho ayaa manipulation badan ku sameeya dawladda China ee 2013 ilaa 2021 2017 marar badan tiri suuqan waa mamnuucay oo crash ku sameysay oo dhulka uu galay marka tusaale ahaan US stock marketka shirkadaha saamiyada suuqa wadanka Mareykanka dawladda Mareykanku hay'ad dhan oo Security Exchange Commission la dhaho ayaa u maamusho regulate gareysa in suuqa marna hoos loo dhigo mar sare loo dhigo mar lagu ciyaaro mar la manipulate gareeyo ka kala ilaalisa hadaba suuqan cryptocurrency ma laha hada muuqaalkan aan maanta idin soo gudbinayo waxaan rabaa bilka hore inaan idin sameeyo ayaan doonayay markaan Ethereum kan ka hadlaynay balse intii aan sameyn gudihiisa waxa ka dhacay ilaa 4 crash ayaa ka dhacay mar Elon Musk ayaa yiri gawaarida lagu ma iibsan karo Tesla mar sidoo kale wuxuu yiri koronto badan ayuu isticmaalaa mar China ayaa soo weerartay mar Turkiga ayaa mamnuucay marka yani wuxuu leeyahay wax la dhaho FUD qaacido loo yaqaan fear uncertainty and doubt oo hadhowta suuqu crash ku yimaado oo dadku intay walwalaan ay lacagtii kala baxaan hoos dhac badan suuqa u keenta marka qodobadaas waa qodobada digniinta ee muhiimka ah fursad ayuu leeyahay oo suuqani dhowr boqol bilyan ayuu sanadkan bilowgiisii ahaa hal marna wuxuu gaaray bishii afraad la soo dhaafay Abriil 2 trilyan iyo bar ayuu gaaray marka wadad badan baa ka faa'iiday qaar baa milyaneer ku noqday qaar baa lacag badan ka sameeyay hadaba walaalayaal intiin u guda gelin suuqan cryptocurrency-gu waa suuq aad guda ballaaran according to coin market cap-ka 10,000 oo cryptocurrency ayaa jira 10,000 bal ka waran hal kun xataa maaha 10,000 oo noocyo kala duwan oo lacag ah oo barnaamijyo kala duwan ayaa jira sadarkiisaan cryptocurrency coin market cap-ka lacagahaas hadda waxay kala baxaan qaarkood waa currency sida Bitcoin-ka XRP-ga Litecoin-ka yani Helium-ka yani lacaga badan oo waxa jira yani currency ahaan u shaqeeya crypto-ga lacagaha qaarkood waxa weeye waa cryptocurrency smart contract loo yaqaano oo sida computer u shaqeeyo oo wax lagu dul programmeeyo oo barnaamijyo badan oo kala duwan oo application leh maxay ahayd digital NFT leh
waxyaalo kala duwan lagu qabto ayaa jira oo qaabka programmingka computerka kale u shaqeeya. qaarkood waa exchange token weeye oo suuqa wax laga iibsado oo sarifka oo kale sida Binance Coin oo kale, Uniswap oo kale token ayay leeyihiin. qaarkood waa meme coins wax loo yaqaano oo ila qosolo aan wax micno lahayn oo maad ahaan loo sameeyay sida Dogecoin-ka iyo Shiba Inu. marka wuu noocyo badan yahay. haddaba shanta ugu wanaagsan ee aad iibsan lahayd intaan insha Allah muuqaalkan ay kaga hadlin waxaan u baahanahay horta inaga dhalinyaradeena dalkii joogtay yani qaabkee suuqan marka koowaad ugu iibsan karnaa ama qaacidoonkee yani qaabkee suuqan aan uga qayb gali karaa aan u iibsan karaa. waxaa jirta walaalayaal lacagahan crypto-ga waxa laga gataa exchange-yano waaweyn. hadda Mareykanka oo kale waxa laga gataa exchange-ga Coinbase baa ugu wanaagsan oo laga gato, gaar ahaan qaybtiisa Coinbase Pro-ga ah ayaad ka sii dhex gadanaysaa maadaama khidmad yar oo kooban iyada laga qaadayo. dadka kale caalamka ku kala sugan ka ugu badan ee ugu weyn suuqan la isticmaalo waxa la dhahaa Binance Coin ayaa la dhahaa. qaabka la isaga diiwaan geliyo dad badan oo istaadiin ah oo macallimiin kala duwan ayaa ka sameeyay muuqaalkooda. halkan mid kamid ah qaabka isaga diiwaan gelinaysa idiin soo dhigaya iyo linki aad hoos ku dhufan kartaan oo aad iska diiwaan gelin kartid. haddaba linkiga markaad furitid oo suuqan aad iska diiwaan gelisid waxaad u baahan tahay inaad haysatid USDT ama lacag stable coins loo yaqaano oo coinan u dhigma $1 ama €1 ama €1 ama $1 pound. yani waxaad u baahan tahay stable coin wax loo yaqaano oo lacag dollar crypto ayaad u baahan tahay. lacagta dollarka crypto markaad iska diiwaan gelisid suuqan Binance-ka markaad iska diiwaan gelisid waxa ku soo diri kara qof qaraabadaada oo ama Kenya jooga ama Mareykan jooga ama Ingiriis jooga ayaa ku soo diraya. haddaba qaabka kugu soo diraya ayaan sawiro aad kow laba raaci kartid ayaan rabaa mobilka inaan shaashada insha Allah aan idiin soo saaro walaalayaal. sidoo kale waxaa jira dad xataa wadanka gudihiisa idin la jooga oo boqolkiiba khidmad yar bay ka qaadanayaan. waxay ku soo dirayaan US dollarkii oo crypto ah. kabacdina waxaad ku iibsanaysaa lacagihii kale ee cryptocurrency-ga sida Ethereum-ka, Bitcoin-ka, Cardano-ha, maxay ahayd Chainlink-ka, VeChain-ka, hadba nooca doonaysid ayaad ku iibsan kartaa. marka koowaad walaalayaal waxaad sameynaysaa markaad iska diiwaan gelisid waa kan waa application-ka Binance Coin-ka. markaad iska diiwaan gelisid qofku haddii aan xataa la xaqiijin maalintii 2 Bitcoin wax ka yar waa ka iibsan karaa ama se uu laga macaamili karaa website-ka Binance-ka uu ka iibsan karaa crypto-ha. marka walaalayaal waxaad sameynaysaa waxaad tagaysaa sida lacagtan lagugu soo diro trade meesha ku qoran tahay tagaysaa. waan ku calaamadiyay waa huruud sawirka waad aragtaa. trade markaad tagtid walaalayaal waxa ku soo baxaya halka hoose koonaha midig wallet waa khasnada lacagta lagugu soo dirayo. wallet-ka markaad ku dhufatid waxaad xagga sare saameynaysaa deposit ayaa taamanaysaa. deposit-kaas marka aad taamatid waxaad sameynaysaa walaalayaal wuxuu ku oranayaa maxaad doonaysaa inaad markaad ku dhufatid deposit-ka ama lacag crypto ah oo dollarkii crypto ayaad gashanaysaa mise lacag cash oo bangigaaga ayaad ku xiranaysaa oo hadhowto account-kaaga Binance ku dirsanaysaa waxaad ka iibsanaysaa. marka inagu bangiyadeena lama shaqeeyo wadamadan hadda exchange-yada Coinbase-ka iyo Binance-ku wadamo gaara ayay ka dhex shaqeeyaan oo supported countries list baa la dhahaa. waad arkaysaa wadamada ay ogol yihiin inay la macaamilaan ama se markaa wax laga dhex iibsan karo. Kenya kale ayaa kamid ah. marka hadda qof Muqdisho jooga ayaa jira group waxaan Telegram oo dad adminada ka ah ay dad macallimiin oo suuqan dhowr sano ku jiray ay jiraan oo ka caawin karayaan hoos idin kula wadaagaya oo dad badan oo asxaabta kanaalka kamid ah ka caawiyay oo loogu soo diray cryptocurrency-gooda oo ammaan ah ayaan insha Allah idin la wadaagaya. markaad crypto ku dhufatid waxaad sameynaysaa walaalayaal waxaad ku qoraysaa halka lacagta lagu soo dirayo hadba aad noocaad rabtiin lagu soo diro USDT oo kale ku qoraysaa. Tether baa la dhahaa lacagtan waa stable coin cryptocurrency ah. isagu sarana uma kaco hoosna uma kaco 10 sano ilaa 20 sano halkiisa dollar ayuu ahaanaya waxbaad ku iibsanaysaa. USDT-gaas aad ku qoraysaa baan u baahanahay in la ii soo diro. USDT-ga marka ku soo dirsid wuxuu ku leeyahay halkan wuxuu ku soo saarayaa dawaaniga waa address-kayga sababtaas aan u qariyay laakiin inta content number ayuu ku soo saarayaa number kala duwan. numberkaas aad meesha copy taabanaysaa. lambarka adiga account-kaaga samaystay ayaa gaar u leh waa khasnadaada waa muhiim. qofkan ku soo diraya Ingiriiska jooga Binance-ka haysta ama se yani Coinbase-ka haysta ama yani exchange kale USDT ku haysta
ay addresskaagaas ayuu lacagtii kugu soo dirayaa $100 ahayd hadba khidmad intaad ku heshiiseen ayuu ka qaadanaya $100 $90 hadba waxaad u dirtay ayuu kuu soo diraya addresskaagaas aad u diraysaa addresska markuu lacagtii kuu soo diro dhag meeshii walletka ayaa waxaad ka arkaysaa $100 oo kale ama $50 hadba inta u dirtay oo ku jirta lacagtii markay kuu soo dhacdo walaalayaal waxaad sameynaysaa waxaad taamanaysaa meesha hadda spot baad tegaysaa trade-kaad ku laabanaysaa trade-kii marka ku laabatid spot baad tegaysaa meesha ku qoran tahay aan ku calaamadiyey meeshan yare labada fallaarood ee cas ee isdhaafaya ayaad hadba lacagta iibsanaysid ma Binance Coin ba hadda aniga ii saaran oo US dollar USDT ah ma waxaad iibsanaysaa yacni Cardano oo kale Cardano lacagteeda native-ka ADA baa la dhahaa ADA baa la dhahaa ADA USDT oo kale baad u baahan tahay inaad iibsatid Cardanaha oo lacagaha ugu wanaagsan ka mid ah Cardano markaad ku dhufatid waxaad sameynaysaa xagga hoose iyo lagu xadada $100 Cardano baan rabaa inaan iibsado wuxuu ku siinayaa 60 xabo Cardano ah buy ayaa taamanaysaa sidaas ayuu ku gelayaa maxay ahayday sidaas ayuu ku gelayaa coinkii Cardano walletkaaga ku galaya hadhowto waxaad sameyn kartaa insha Allah waxaad sameyn kartaa waxaad soo gadan kartaa wax loo yaqaano hard wallet oo sida USB oo kala ah oo aad lacagtaada ku xawilan kartid oo Binance-ga kala soo bixi kartid oo adigu iska leedahay cidna ka jabsan karin cidna ay ka qaadan karin hardware wallet-ku muxuu yahay link yar baan halka idin soo dhigayaa baad ku kaydsanaysaa 5 sano intaad $200 ama $500 ama $1,000 oo kale intaad wax ku iibsatid coinin wanaagsan ayaad meel isaga xiraynaysaa 5 sano ka bacdi lacagtaas qiimaheedu wuu kordhaya marketku hadda 2 trillion buu maraya marka waxa laga yaabaa inuu 50 trillion marayo ama 40 trillion marayo oo kale sare u kaco lacagtaadii $1,000 waxaad arki kartaa dhowr sano ka bacdi oo kortay oo dhowr boqol oo kun oo dollar noqotay ama $50,000 noqotay hadba intaad marka aad maal gashatay faa'iidadeed kaaga soo baxaysaa marka insha Allah walaalayaal muuqaalkan maanta waxaan ku soo koobayaa qaabka loo iibsado iyo 5 coin ee ugu wanaagsan 5 coin ee dadku ay badi gataan waxa ka koowaad waa Bitcoin oo isagu store of value ah oo yani sare inuu kaco 10 sano ka hor ayaa la bilaabay waa Bitcoin yani lacag weeye isagu waana lacag hoosna u kacda sarena u kacda aad u faa'iido badan iyada boqorka cryptocurrency-ga ah haday sare u kacdo crypto-yaasha yaroo dhan ee ka soo haray altcoin-ka loo yaqaano ama alternative coin-ku kor ayay u kacaan marka Bitcoin-ku dadka marka koowaad waxay sameeyaan 20% Bitcoin ay iibsadaan Bitcoin-ku marka waa qaali halkii Bitcoin baa maraya $40,000 wax ku dhow $38,000 $39,000 marka macna badan sameyn maayo hadda lacag yar haysatid laakiin hadda lacag badan haysatid isaga ayaad gadan kartaa khidmadiisana way badan tahay marka isaga inaad wax ka gadatid waa muhiim ka labaad walaalayaal iibsanaysid waxa kamid ah hadeen ku soo gabagabayno Ethereum-ku wuxuu ka tirsan yahay smart contract cryptocurrency waxa loo yaqaano waa sida Amazon oo kale waa yani Amazon web service oo kale weeye waxa kamid ah lacagaha iibsan kartid walaalayaal yani Chainlink oo Oracle ah oo data siisa iyo sidoo kale VeChain oo supply chain-ka ka shaqeysa insha Allah muuqaalkeena walaalayaal intaas lacagood ayaan anigu wax ka iibsaday aan kula talinayaa wixii su'aalana xagga hoose ayaan ku soo jawaabayaa muuqaalkan insha Allah la wadaaga dadka raba inay suuqan maal gashadaan sidoo kale groupkan Telegram-ka ee Soomaalidu leedahay ku soo biira si dad badan ay ka caawiyaan dad macallimiin oo istaadiin ay ku jiraan oo xog badan ee faa'iido badan aad ka heli kartaan walaalkiisa Kariye Cabdullaahi Cali. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.